thank you ما شاء الله كوسع قف كحية السلام عليكم. السلام ورحمة الله waxaan qabaa su'aal green card ba expire iga noqday soo midka kale balagareeyay weli ma ii soo dhicin kiiska waa processing ku jira dan real ID ayaan ku sameystay intoos iga dhicin green cardka racing real ID ka dhigtay marka hooyana waa ahay sometimes in ilmaha caana ka go'ay waqti in la baxay ma lagu bixi karaa gaas soo la isqaban karaa qona real ID bixinta maxaad ka wadaa ma soo adeegan karaa adeeg dukaaminkan ka wada maxaa kuu diiday soo waa lagu qabanaya guriga ka bixina la igu dili baxan you do have a residency at aad wada asoo dhacsan dil ugu qabta caadi miya aday talaha waxaan ku siin lahaa horta ma inaad invoice waxa inaad tagto inaad ballan intaad samaysato horta hadduu kaa dhaco ood apply garaysa I-9-ga resiidkiisa aad haysato sharciyan weli residency baa tahay oo la socoyaa marka waxaa haddaad rabtid intaad tagto meesha ballan aad ka samaysato yaa waxay ku siinayaan I-94 wax u eg oo kale laakiin I-551 oo green card oo kale temporary oo sawirkaaga ku dhagan yahay timbrana ku taala ayaa lagu siinaya 2 years processka intaad kugu jiro I-9-gaagii ninkaarkaaga cusba uu ku imanayo mid u dhigma yaa lagu siinaya ma fahamta shaqana lagaaga erimaayo sharcina waad ku joogtaa insha Allah marka waa adeegan kartaa baan dhihi lahaa diilaga also Sharifka hal wax kale weydina so because marka green card oo cusbeensiinistid oo waraaqada dirtid oo rasiidka lagu soo dir you have automatic oo waxa haysataa adi hal sano miya oo automatic renew dhaha expire green ku dhaha laakiin automatic renew laga dhigo ku sii shaqeysan kartaa asi receipt still saas ay ugu dhahay lawyer-ka wuxuu ugu dhawa isku caadi bas ku haysan kartaa shaqo waa ku heli kartaa meesha aad ku aadi kartaa adi resident ata you save so you get okay heeda kale green card-kaagu markuu kaa dhacayay uu kaa dhacayba maxaa ku diiday seriously inaad buuxsato maxaa ku diiday so 2 year bas bay ku siyaa wadanka marka imaan oo conditional keyword okay I got you conditional keyword hay wala hamar waa dega najax soo korina wax dhaho horta si Sharifka iyo Ark sheeg waa nasiib lagu soo day first of all but secondly so ma ogtid hadhowti still adina lawyer qabsatid when you get in your citizen marka xariisanaysid because abandera ku suubisay 7 months man hal sana maqnaati you will need a lawyer hadhowti oo waraaqado dira I don't know so to explain gareeyo iyo gadaalna waxa laga yaabaa fine inay ku soo diraan waa laga yaabaa I'm not saying 100% sure because abandera ku suubis office ku laga yaabaa inuu ku soo fasaxay but systemka ku galaja because 5 years from now ada xariisid okay waa citizen like had 5 years until gaar ada xariisid qasab waa lagu weydina so dadka 6 months iska dhaaf 6 months 2 days ku dirsanay because adoti citizen ka lagu xujeena خلاص هذا كبحة thanks guys very good boy شريف سؤال مودين كرا كوسع وين السلام يا دمانتين شريف هم ودينا يعني هو نيك شقن جري aan waan lahay Amazon-ta oo shaqaale ilaa muddo 9 bilood ka ahaa aan batch blue ahayn ba shaqadii laga joojiyay marka baqadimahan waxaan u tagi waayay marka ma xareysan karaa development wixii lacagta la soo celin jiray ma xareysan karaa horta niyo khibrad badan uma lihi ani employment insurance-ga marka waxaa fiicnaan lahayd qof yaqaan inuu su-aasha ka jawaabo Sharif anaa insha Allah uga jawaabaya walaalkii su-aashana weydiiyey shaqada may ku soo celiyeen oo adaa iska shaqada uga tegay miya mise waxay ku dhaheen shaqadii waa dhamaato oo way ka fasaxeen walaalo oo leefay ku siiyeen miya way joojiyeen way ka joojiyeen shaqada ma dhamaane way eriyeen okay waxaad markaa sameynaysaa waxaad markaa lagaaga baahan yahay in aad dalbato unemployment oo markaa waa inaad saacadii iyo maalintii taariikhda waa inaad garanaysaa sababtoo ah waa la weydiin doonaa company waa la wacayaa
marka qoladani canshuurta maadaama jeer kasta lacagta lagaa jari jiray waxaan xaqaagii hadda imika aad qaadan doonto laakiin verification baa la sameynaya iyo wax kasta inay sax yihiin baa loo hubinayaa waad saxeexaysaa marka waxaan kula talinaya haddaad joogto Minneapolis aarideeda career force baad iman kartaa ama qof Soomaaliya oo sida Sharifka oo kale oo meel xafiiska oo kale oo baad u tagaysaa anu aridan anu aan ka dhawahay waan ku caawin karaa laakiin muhiimaddu waxa weeyaan inaad garanayso xilliga shaqada laga cayriyo laga fadhiisiyay kadibna waa in aad mutaqaanaa aad computerka username baa lagu siinayaa account baa lagu siinayaa kadibna passportkaasi waxa weeyaan waa very sensitive baa dhahayo kuma siinayaan laakiin temper ahaan addresska waa inuu magaalada aad ka dhawday weeyaan waa passportka lagu siin doonaa insha Allah taala fiiri agabso xagee joogtaa adiga anu Twin City hadda ka shaqeeya marka isagana aan weydiin intuu joogaa ninka adaga su'aasha qabay Minneapolis okay isku meel aad joogtay soo follow garay insha Allah lala tacaali jiray dad xanuunadan qaba and of course dadku siyaabo kala duwan bay uga hadli jireen oo maxaa la yiraahdaa ay u describe gareyn jireen laakiin waxa u baahan tahay in meeshii la tago la study gareeyo la qoro mugta xitaa haddii aad samaysaan list maaragta iminka for example Minneapolis dad badan waxaa jira mental illness hayo oo u taga ajanabiga waxa u tagayaan nin cadaan ay u tagayaan mental illnesskooga iyo situationkooga kala hadlayaan ama therapy connection lama yeelan karo qofku because they different separate life bay kusoo noolaan bal ka waran haddii aad u tagto nin Soomaali oo psychiatrist he understand you more than anybody else personally because situationkaaga dhan buu fahmayaa waxa kugu soo dhacay buu fahmayaa marka miyaana wanaagsanayn in la sameeyo list haddii aad xafiisyo leeyihiin dhakhtaradu in Minneapolis ama Minnesota in dhakhtaradu list soo saaraan Soomaalidu leeyihiin haddii mental illness offices qaarkood leeyihiin u baahan yihiin inay patientka Soomaalida qaataan ay ka caawiyaan xagga mental illnesska something like that taa laftigeedu waxa I think communityga uu isku soo dhaweyn lahaa waxyaabo badan baan wax ka bedeli lahayn waana mahadsantiin walaal Siham waxma ku daraysaa ku soo walaal wax yaraan ku darsanahay and I like a boy and su'aashuna weydiiyey slander baan malaynayaa inuu yahay wiilkaasna weydiiyey arrin fiican weeye fikrad fiican waay wallaahi aniga kolley magaaladan aan deganahay kuma aanan arkin Soomaalina way ka buuxaan aad bay uga buuxaan waxaan arkay dadkeena wallaahi horta sida abaayo sheegtaba gabadhi dhakhtarada ka hadashay yacni sanadba sanadka kasii ma arkin oo dambeeyo xoogaa waxaad malaysaa dadkeena inay ma arkin xoogaa little bit of inay xoogaa arrintaas iska furfureen oo xoogaa open ay yihiin oo yacni ay xoogaa little bit more educated ay ka yihiin when it comes to mental maxaa la jinay illness marka sidii hore ma aha because waxaa ku arkaa isbitaalka sidii loo imaanayaan ku arkaa ma fahantay 1 year ago sidii hadda dadkeena u imaanayaan isbitaalka hadda oo yacni sanadkii hore beeshiyaasha imaanaya iyo beeshanka hadda imaanayo beeshanka hadda imaanaya ka badan maxay taa ku cadaynaysaa xoogaa inay ma arkin oo dadka ay fahmeen ma fahantay laakiin waxa aan dhihi karaa waxa ugu weyn gadaal noo ma arkin oo maxaa la dhahay naga dhigaa yacni inaan waxba fahansanayn oo yacni stigma maxaa lagu dhahaa af Soomaali ma garanayo stigmada af Soomaali wax lagu dhahaa ma garanayo wax laga aaminsan yahay inay normal ahayn or like taboo you know waxay u arkaan yani wax oo like ani ceeb ahaan oo arkaa يعني maxaa la dhahay wax oo qofka bili aadanka haduu ma arkino wax madaxa xanuun ooga dhaco oo dhibir ay dhahaan dhimirkaas haduu ku dhaco yani ay ka soo qaadayaan dadkeena oo qofkan waa waalan yahay shaydaamaha ku jiro which means ilaahay bay ka fogaadeen war ilaahay isku xir come on you guys ilaahay qofkan bili aadanka sidoo qofka ugu dhaco xanuunada kale ee physicalka ah oo kamid ah wadna xanuunka kaliya xanuunka ugu dhaco ayuu madaxa laftirkiisa xanuun u leeyahay sida aboowa dhahay just because depression was part of ama anxiety ama ADHD ama anything waxyaalahaas oo dhan waa little bit of waxa weeyaan waa part of mental health
illness ay ka mid tahay ama xanuunada ku dhaco dhimarka ayay ka mid tahay ma ahan qofkaas inuu waalan yahay ma fahantay dadkeena waxaa arkaysa ayagoo ku dhahay anayba igu caynayaan meeshaa maa ka shaqaysaa bismillah give me 2 sano isii 2 sano kabacdi waxaa noqonaysaa waa waalanaa waa yacni adigana sidoo kale noqonaysaa ma fahantay runtii realitygana waxaa waaye mental illness yacni xanuunada sida kale oo ma arkin oo hadda kale oo TB qofka markuu la kala waa la kala qaadaa ma fahantay xanuunada la kala qaado ma aha mental illness haddayn oo dadkaada u qaban yani for example hadduu waalidka u qaba schizophrenia uu waalidkaa yahay adigana chance weyna haysataa yani chancekeedu riski haysataa oo waalidkaada aad ka qaadan kartid xanuunkaas laakiin macnaheedu maahan cudurro la isku daarto alxamdulilah ma ahan ma fahantay marka waxaa u baahannahay awareness baan u baahannahay still we got more work to do still waxaan u baahanahay dadkeena in la wacyada geliyo in la isku imaado weliba dadkeenaanayto caafimaadka waxyaalaha iska yaqaana mental health wax ka yaqaana maxaa la oran jiray in la iskugu imaado la isbarto waxyaalahan communityga laga caawiyo ma u malaynaay yani dad badan I don't know dad badan inay jiraan ma u malaynaay when it comes to mental health badanaa dadku waxay bartaan caafimaadada yani waxyaalaha kale the other maxaa la oran jiray practices waxyaalaha sida practitioner kale oo family medicine ama dhakhtarinta yani waxyaalaha kale oon ku shaqo lahayn qaybta maskaxda marka wallaahi waan u baahannahay laakiin waxaad ogaataa inay marxaladda maanta aan taaganahay inay sidii hore ka fiican tahay wallaahi sidii hore ay ka fiican tahay Soomaali way gaartay waxaan maqlaay Dr. Habeeb ma arkin oo dad buu daweeyay marka alxamdulillah let's maxaa la dhahaa more arrintan aan ma arkin aan u istaagno aan dadkeena ka caawino markaan aniga wax baranayo oo ma barto lacag ka suube laakiin waxaan u bartaa naftayda iyo dadkayga saan ku anfici lahaa marka waan u baahanahay wallahi dad inta soo istaago ma arkino maxaa la dhahaa hey you guys let's ma arkino shaqadan aan qabano dadkeena way u baahan yihiin waa mahadsantiin walaal waa mahadsantiin aniga waxaa usoo fuuli keliya inaan waa mahadsantiin